waa maalinimo jimca dadka intiisa badani waxa ay ku jiraan nasiino iyo cibaado waxaanu si kadis ula kulannay dawladda hoose oo halkan oo ah toga Faraxaskulle ka wada hawlgalla ballaaran oo nadaafadeed iyadoo kaashanaysa shirkadaha nadaafadda ee magaalada hawlgalkani waxa hogaaminayay maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood uu heliyo agaasimaha waaxda arrimaha bulshada iyadoona togani laga nadiifinayo qashin in badan ragaadiyay isla markaasina sababi kara caafimaad darro bulshada uu keeno ugareyntii waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda arrimaha bulshada Jaamac Cali Xaashi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka iyo qaar ka mid ah shirkadaha nadaafadda oo dawladda hoose ka caawinaya nadaafadda togan waxaan bilownay ololihii nadaafadda ee degmada Laascaanood waxaa ka iska kaashaday shirkadaha ka howlgala magaalada Laascaanood ee nadaafadda iyo dawladda hoose maanta ku eekaamayo ololuhu maalin walba oo jimcaha haddii alla ka dhigo uu soconaya magaalada Laascaanood gebi ahaan shanta degmo ee ka kooban tahay maalinba waxaan u qorsheynay inaan jimco walba aan galno degmo waxaan ugu baaqayaa bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay nagala shaqeeyaan nadaafadda waxaanu maanta halkan laga wadaa olole weyn oo nadaafadeed oo ay dawladda hoose hogaaminayso degmada Laascaanood shirkadaha kale ee gaarka loo leeyahay oo haddii alla ku rooyahay iyaguna taageerayo la shaqeynaya runtii nadaafaddu meeshay kaga jirto diinteena islaamka waynu garanaynaa in la yiri nadaafaddu waa iimaanka ka badhkii hawsha maanta halka socota ee hoggaanka dawladda hoose iyo xildhibaanada golaha deegaanka waan soo dhaweynaa waan la shaqeynaa insha Allah tacaala si buuxda ula shaqeynaa reer Laascaanood waa inuu diyaar u noqonnaa shaqo gurigaaga markaad ka soo qaadid aadan dhigin dooxi biyuhu marayaan aad qaadid oo meesha loogu talagalay la geeyo qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan xaafadan ayaa soo dhaweeyay hawlgallada nadaafadeed dawladda hoose ka wado xaafadooda marka xigta waxaan leenahay hawlgalkan ay dawladda hoose wadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku garab galo shaqo wanaagsan bay ummadda u hayaan marka shaqada ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku garab galo haddaanu nahay shacabka magaalada Laascaanood ku dhaqan waxaanu bogaadinaynaa golaha deegaanka ay hogaaminayaan maayirka iyo maayir ku-xigeenka shaqo fiican bay u hayaan wadooyin banayn iyo qashingur maayir ku-xigeenka degmada Laascaanood Axmed Kowte ayaa ka warbixiyay hawlgalkan ay saako jimcaha ka bilaabeen toga Faraxaskulle waxaan u mahad celinayaa shirkadaha nadaafadda oo nagala qayb qaadanaya barnaamijkan ololaha ah isla qaadanay inaanu maalin kasta oo jimco ah anagoo ka faa'iideysanana gelinka hore inaanu qashinka magaalada ka qaadno oo si wada jira u qaadno meelaha qashinka la dhigo ee la geeyo dooxyada siiba dooxa weyn runtii waan dareemaynaa inay tahay maalin cibaado laakiin insha Allah waxaan ku cibaadaysanaynaa inaanu dadkaas mas'uuliyaddu naga saarantahay inaan u shaqeyno laakiin garbay u baahan tahay garbihiina waa idinka waxaan ka codsanaynaa inaad marka ugu horeyso qof kastaaba uu gurigiisa qashinka yaalla u nidaamiyo waxaan u sheegaynaa guri kasta oo aan magac shirkadeed ku buufsanayn oo aan qashinka laga qaadin dawladda hoose ka qaadi doonta laban laabna waa laga qaadi doonaa lacagaha shirkaduhu qaadaan lacagaan ahayn oo laban laab ayaa laga qaadi doonaa magaaladeena aan wada nadiifsano magaaladeena aan wada ilaashano waxa kaliya aan wada leenahay waa Laascaanood liibaan qaran warbaahinta qaranka Soomaaliland Laascaanood